cashirka maanta waxaanu ku qaadan doonaa qaabka loo sameeyo calanka halkan kaga muuqda ama 3D-ga noocan qaabka loo sameeyo. Marka hore waxaad soo furanaysa file, kadib new baa leedahay. New markaad tiraahdo anigu halkan waxaan gashaday cabir 1080 marka adigu cabirka design-ka ku sameynayso ayaad gashanaysaa. Halka marka wifi flag baan iskaga qorayaa. Kadib create baan leeyahay. Create markaan idhaahdo marka hore waxaan sameynayaa hadaba calankii aan doonayay inaan noocan ka dhigo ayaan sameysanayaa. xagga ma ku soo noqonaya marka calanka halkan baan triangle dhiganayaa. kadib fill baan ka dhiganayaa madow, stroke gaasna iska saaray. kadib tan baan kala koobiyeynayaa, altaan qabanayaa, halka hoosaan dhigayaa, haddana altaan qabanayaa, halka hoosaan dhigayaa. kadib waxaan sameynayaa inaan alignment kooga saxo oo aan halka align tago. kadib aan xagga ku dhufto, aan iska soo xidhayaa. kadib hadda waxaan sameynayaa inaan rectangular kala soo qaato oo aan saa u dul saaro. kadib hadda kalaradii ayaan ku habeynayaa. ka hoose double click baan leeyahay, waxaan ka dhiganayaa akhtar baan ka dhiganayaa. okay baan leeyahay. kan kale aan dooranayaa, caddaan baan isaga ka dhiganayaa. ka hoosena waxaan ka dhiganayaa madowgaasaan ku deysanayaa. waxaan sameynayaa kan dhinaca ayaan tegayaa. kadib double click baan leeyahay, casaan baan ka dhiganayaa isaga. okay baan leeyahay. markaan qaabka u samaysto ayaan in yar saa u yara dheeraynayaa dhinacan. waxaan sameynayaa markaa saa intaan u select gareysto gebigiisaba ayaa halkan baan soo furanayaa. kadib symbolisk-aan tegayaa. symbolisk-ka markaan tago ayaan calankayga saan usoo jiidayaa. halkaa markaan dul keeno ayaan sii daynaya. markuu panelka ay soo saaro ayaa halkaa waxaan ku qoranayaa flag. kadib okay baan leeyahay. markaa halkaas ii gelayaa. waxaan sameynayaa markaa inaan intan iska saaro, aan kan delete iska idhaahdo. kadib haddaba waxaan sameynayaa sidan inaan u qalqaloociyo maadaama doonayo pen toolka ayaan marka hore tegayaa. kadib stroke baan sameysanayaa sidaa u qalqalooca. halkan baan click leeyahay. kadib saasaan odhanayaa. haddana halkaasaan click leeyahay. kadib saasaan odhanayaa. haddana halkan baan click leeyahay. saasaan odhanayaa. kadib saasaan halkaa koonaha ugu dhufanayaa. click baan leeyahay. kadib waxaan sameynayaa inaan stroke ka dhigto. stroke markaan ka dhigto ayaan halkan tegayaa. kadib waan select garaynaya. waxaan sameynayaa anchor point-ka inaan saa usoo yar celiyo. haddana kan kale ayaan dooranaya. kadib anchor point-ka saa u yar celinaya. waxaan sameynayaa inaan kan ku yar noqdo, aan yar saa dib ugu yar celiyo. halkaasaan ku daynayaa. markaan samaysto adigu sidii aan doonayay inaan u qalqaloociyo marka hore markaan halkan kusoo samaysto ayaa waxaan sameynayaa inaan saa u doorto. kadib waxaan tegayaa effect 3D baan dooranayaa. kadib extrude and bevel baan dooranayaa. markaan doorto halkan waxaan gashanayaa cabirka screw depth-gayga. halkaas imika anigu waxaan gashanayaa 400. kadib halkaa waxaan dooranayaa kaabka ayaan tan kaab dooranayaa. kadib halkan baan ka saxayaa sida aan doonayo inuu igu soo muuqdo. marka anigu saasaan ku deysanayaa, halkaasaan geynayaa, qaabkaasaan ku deysanayaa. kadib halkan baan tegayaa. haddii aad arkayso map art ay ku qoran tahay, click baan leeyahay. markuu panelka in soo furo ayaan halkaa symbol ay noogu taala ayaan soo furanayaa. kadib calankii aan symboliska ku ritay ayaan soo dooranayaa. markaan soo doorto kadib baa haddana waxaan dooranayaa scale to fit. scale to fit markaan doorto haddana invisible geometry baan digta saarayaa. calankaygu ii soo wada muuqanaya. marka haddii aad arkayso casaankii oo xaggaa hoose inaga tegey, waxaan sameynayaa inaan rotation ku sameeyo oo aan xagga kale saa ugu rogo anoo markaa simayo rotationkana. qaabka markaad u toosiso ayaa haddaba waxaad leedahay okay baad iska leedahay. ama haddii aan ku noqdo waxaan sameynayaa inaan casaanka saa u yaro durkiyo si casaankaasi aanu xaggaa ugu dhaadhicin. ayaa waxaan sameynayaa inaan saa u yaro durkiyo. halkaa markaan gaadhsiiyo kanna waxaan sameynayaa inaan saa usoo yarjiido. halkaasaan ku diinaya markaa. kadib baa waxaan leeyahay okay. halkanna okay baan iska leeyahay markaan saxdo weeyaan. kadib baa waxaan sameynayaa isagoo saa ayaa waxaan tegayaa object. kadib waxaan dooranayaa expand experience. haddana object baan tegayaa. waxaan leeyahay ungroup object baan haddana ku noqonayaa ungroup baan leeyahay. kadib baa waxaan sameynayaa inaan tan doorto, haddana aan taa hoose doorto, halkaa aan click idhaa, haddana halkaa aan click idhaa ayaa waxaan sameynayaa inaan halkaa dhigto. markaan halkaa dhigto halkan haddii aad arkayso waxaa ii yaala 3D geometry-gaygii delete baan iska leeyahay. kadib waxaan sameynayaa haddana isku soo wada doorto, aan xaggan keensado. markaa sidii aan doonayay inaan ka dhigto ayaan ka dhiganayaa. saasaan u yar weyneynayaa. markaan intaa ka dhigo ayaa waxaan sameynayaa inaan koonahana saa u yaro durkiyo. markaan halkaa gaadhsiiyo ayaa waxaan dooranayaa intaan isku select gareeyo ayaan right click leeyahay. kadib waxaan dooranayaa release clipping mask. markaa haddana haddii aan iminka dib u qaado calankaygii aan halkaa geeyo, halkan haddana waxaa ii yaala clipping mask ay ku jireen, kana delete baan iska leeyahay. kadib haddana waan soo dooranayaa. halkan baan kusoo ceshanayaa. halkaasaan dhiganayaa. kadib hadda waxaan sameynayaa inaan kan sare doorto. waxaan taabanayaa control iyo C, haddana control iyo F baan leeyahay. markaan intaas sameeyo
ayaan layerka cusub ee koobiga ah oo uu sameeyay ayaa waxaan dooranayaa gradient ka dhigto marka gradient ka dhigto qaybta cadaanka baan dooranayaa opacity-ga ayaa waxaan ka dhigayaa 0 madowgana opacity-giisa waxaan ka dhiganayaa 70 markaan ka dhigto ayaa haddaba waxaan doonayaa halkaa inaan geeyo madowga waxaan sameynayaa gradient toolkaygaan dooranayaa kadib saasaan leeyahay halkaas koonaha ayaan geynayaa saasaan yaro durkinayaa halkaa koonaha markaan geeyo ayaa waxaan ku noqonayaa halkan gradient toolkayga kadib waxaan dooranayaa intaan move toolka taga marka hore ayaa waxaan dooranayaa transparency haddana halkaa normal ayaan multiply ka dhiganayaa kadib qaabkaas uu noqonayaa calankayga waxaan sameynayaa markaa inaan gradient toolka ku yar noqdo kadib aan saa u yara jiido si madowga faraha badan lii uu meesha iiga baxo ayaan saa u yara jiidayaa hard un baan ka doonayaa inaan ka dhigo saasaan u yara durkinayaa halkaasaan markaa ku deysanaya move toolka inta click baan leeyahay kadib haddana waxaan sameynayaa inaan qaybtan dhexe doorto iyadana aan control iyo C iyo control iyo F taabto marka iyadana la kala koobiyeeyo ayaa waxaan sameynayaa inaan iyadana gradient ka dhigto kadib haddana gradient toolka aan tago aan sidaa kor ugu soo jiido halkaa yara hoose ayaan keenayaa madowga kadib waxaan tegayaa move toolkayga waxaan dooranayaa transparency panelka kadib halkan waxaan ka dhiganayaa multiply kadib okay baan iska leeyahay markaan qaabkaa u sameeyo ayaan haddana qaybtan kale aan dooranayaa control iyo C baan taabanayaa haddana control F baan dooranayaa markasta markaa waan koobiyeyna meel kasta oo aan doonayno inaan gradient gelino halkan baan markaa dooranayaa waxaan sameynayaa inaan aan doorto horta gradient toolkaygii kadib aan madowga xaggan u soo celiyo markaan xaggan u soo celiyo ayaa waxaan tegayaa halkan gradient toolka intaan marka hore move toolka tago kadib transparency baan tegayaa halkan baan haddana multiply ka dhiganayaa okay baan iska leeyahay markaa qaybtan kale aan tegayaa iyadana intii lag baan ku sameynayaa control C control F baan dooranayaa kadib waxaan tegayaa gradient baan ka dhiganayaa waxaan dooranayaa gradient toolkaygii kadib saasaan usoo jiidayaa xaggaa sare ayaan usoo durkinayaa gradient madowgii ayaan xaggaa keenayaa markaan halkaa keeno ayaan move toolkayga ka tegayaa kadib transparency baan tegayaa iyadana waxaan ka dhiganayaa multiply kadib check baan iska leeyahay iminka markaan calankii qaabkaa u samaysto waxa kaliya hadhay waa qoraalkii horta waxaan sameynayaa inaan intan ka baxday artboardkayga aan iska saaro kadib waxaan soo dooranayaa rectangular cabir baan gashanayaa cabirka artboardkayga ayaan iska gashanayaa anigu waxaa 1080 by 1080 marka halkan baan 1080 by 1080 gelinayaa kadib okay baan dooranayaa marka backgroundka nooca la igu sameeyo ayaa waxaan keensanayaa artboardkaygaan soo dul dhiganayaa markaan qaabkaa u dul dhigto ayaan right click leeyahay kadib waxaan sameynayaa arrange send back baan leeyahay kadib isaga waxaan isku dooranayaa calankii waxaan sameynayaa inaan tago select shape builder toolkayga kadib intaasaan anoo alt xijinaya iska saarayaa haddana intan kale ayaan iska saarayaa kadib check baan iska leeyahay backgroundkaan dooranayaa isaga laftiisa waxaan ka dhiganayaa gradient marka madowga ayaan xaggan hoose isagana kasoo saarayaa saasaan yaro durkinayaa halkaasaan ku deynayaa kadib isaga waxaan sameynayaa inaan isaga doorto object aan tago kadib lock aan doorto aan selection doorto markaan iska log gareeyo kadib waxaan sameynayaa kan doorto aan right click idhaahdo kadib aan transform doorto reflect baan leeyahay markaa copy baan dooranayaa marka saa lagu kala koobiyeeyo ayaan kana koonahan keensanayaa kadibna hoos baan u yar dhigayaa halkaa markaan soo gaarsiiyo waxaan sameynayaa inaan labadooda isku select gareeyo kadib aan shift qabto aan yareeyo saasaan u yareynayaa kadib waxaan sameynayaa inaan kan doorto qaybta hoosena aan doorto kadib aan saa usoo durkiyo control Z baan leeyahay waxaan sameynayaa horta inaan kan doorto qaybtaana aan doorto kadib aan saa usoo durkiyo aan koonahan keensado markaa halkaasaan ku deynayaa kadib waxaan sameynayaa inaan kan kala doorto kadib aan isagana koonahan keeno in yar baan kor yar qaadayaa halkaasaan ku deynayaa haddaba waxaan sameynayaa inaan backgroundkayga aan logga ka furto objective aan tegayaa kadib unlock baan leeyahay waxaan sameynayaa markaa inaan saa u select garaysto aan haddana shape builder toolkayga ku noqdo intaa yare ka baxday aan alta qabto aan iska saaro aan kana iska saaro markaan qaabkaa iska saaro check baan iska leeyahay kan haddii aad arkayso in yar ayaa dibadda ka hadhay alta ayaan qabanaya waan iska saarayaa kadib waxaan dooranayaa backgroundkaygii objective aan tegayaa waxaan leeyahay lock kadib lock selection baan leeyahay markaan intaas sameeyo waxa igu hadhay kaliya oo qoraalka markaa qoraalka waan iska soo qaadanaya isaga qoraalka waan iska soo select garaysanayaa kadib halkan qaybtan aan imanayaa halkan aan dhiganaya markaa qoraalkii kadib waxaan sameynayaa inaan shift qabto aan yareeyo
maadaama calanku kii hore ka wen yahay kadib halkaa dhexda ayaan dhigayaa qoraalkan hoose ayaan dooranayaa in yar baan saa hareeraha ugu yar jiidayaa saasuu markaa inoogu dhan yahay casharku halkaas inoogu joogayaa fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe noo saar like nagu dhiirigeli wixii faaleed qabtana commentiga hoose noogu reeb asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu